waxaana la ka rabaa inaan ka fakarno deegaankayaga aanu xuduudayada iyo deegaamadayada inaan sugno inaan ku mintidno Soomaaliya mar labaad inaysan qaxin mar baan qaxnay oo tala naga hoostay nin baa ii sheekeeyey wuxuu yidhi aniga iyo laba nin baa oo saraakiila yaa waxaana marti qaaday nin siyaasi ah waa Nairobi markii loo qaxay tagsigii nala socday ninka kuuyaha wuxuu yidhi sheekadayadii buu fahmay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi madaxweynaha aad soo bixiseen imisuu jiray say dhaheen 80 sano nimankaana waa niman dhalinyaro ah wada gaashaan la sarayaal bay ahaayeen wuxuu yidhi oo ma nin 80 jiraad waddankii uga soo qaxday asagaaba dhiman reer ma faraha ka qaadaan maxaa waddankiina isaga burburinaysaan annagii baa isfiirinay buu yidhi warba ninkaan intuu gartay baa annagu garan weyna ninka darawalka annagu ayaguna saraakiil siyaasiyiina iska dhigahayaan warba ninkaa darawalka ah intuu gartay baa annagu garan weyna waddanka haddii la sabro qof walba malag buu leeyahay waa dhimanhayaa wuu tagahayaa doorashuu ku tegin geeri buu ku tegin xanuun buu ku tegin laakiin ciidan balcad maalintii suurka iyo qiyaamaha la rogay tegaysaa ma tegayso inaan ilaashano oo dhowro aad bay muhiim noogu tahay dowladnimada iyo karaamadeedu aad bay muhiim noogu tahay waxaa muhiim kale noo ah niman la isku qabsanayo maalin idaacadda waxaan ka dhigaysa amisom waxay yidhahaan waddanka ka bixi mayno iyo waa ka baxaynaaye erayo la isku celcelinahayo war nin korkiisa lagu gorgortamahayo oo laleeyahay haddaadan waxaa sii ogolaan haddaadan siyaasaddaa sii ogolaan inaan soo farageliyo haddaadan waxaas isiin dalkaaga ka tegi mahayo ama waa kaa tegahaya waa kaa baxay aduu cesho asagiina isku mashquulsan bal ilaah idinkugu dhaarshay ka warrama waxaan ciidanka u sidan oo garaadada u sidan oo u qurux badannahay soo bilaash ma ahan in korkayaga lagu gorgortamo oo wiilal afrikaankan laga soo kaxeeyo annaga ay korka dushayada ku gorgortamaan annaguna aanu isku mashquulsannahay bal macnaheeda dib u fiiriya qiimaha ay ku fadhido inaan xaragoonno iyo inaan guursanno iyo inaan mataqaanaa khudbadayno iyo inaan meelo ka hadalno intaba manala gudboonta inaan guryo qurux badan dhisannay inaan hanti samaysannaa manala gudboonta bal wax kale iska daaya inuuna yidhaahdo dalkayagii wiil lagu carbuuno isagoo na dhex jooga ciddii dalkayaga u timid inayna badbaadiso oo na kala celiso oo cadowga nala dagaalamaya nagala celiso waa u mahad celinaynaa laakiin haddana waxaan diidanaa aanan ogolaan karin waddanka annagu aan dadka u nahay ciidanka u nahay militariga u nahay dushayada iyo dadkayaga waad weydan golweyn maalin weyta wixii lagu samaynayo shacabka iyagu sidaasuu meel walba ugu rafaadsan yahay abaar baa haysa colaad baa haya dhibaataa haya waa naloo goodiyahayaa baddayadii baa nala ku haystaa hadda ama dalka ayaan ma lihin oo anagu aan dhahno dalka ma lihina kaalayna yahow dalka adinkaa iska leh dalka qaybtiina ka qaata ama dalka annagaa iska leh yaanan hoos fiirino annagu isfiirino aan kor fiirino annagu aan isgarabsano aniga ninkaan waxbuu iya kan ninkaan waxbuu iya kan waxbuu iya waa Soomaali diin baa naga dhaxaysa bal fiiri walaaltinimaa naga dhaxaysa dal baa naga dhaxeeya ciid baa naga dhaxaysa wax walbaa naga bal waxa ku kala duwanaa ii sheega intaas iyo inay difaacaan rabaan bal ninkaas 1200 1400 dushayda ku qaatay ilaa ku dhaarshay xariyahooda waad aragteen waxay furuud cunahayaan waxay daawo haystaan iyo waxay cabitaanka adduunka sharaabka ugu qaalisan loo keenayo kharashkaas uu ku socdaa lagu soo dalacayaa baddayada iyo resource-kayaga dhulka ku jira lagu soo dalacayaa annagana lagu soo dalacayaa annagu nagu socdaa waxaan la ka rabaa Soomaaliya dalka annaga dad u ah yaanan annagu isu xiniyo buuraan yaanan annagu magacyo isu yeelan yaanan annagu 5 bastooladood iyo 5 BKM iyo silsilada isu wadan cadawga aan wadana dib waddankeena aan difaacno ilaah baa ku dhaashay intaas aan samayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.